لا فرق بينهم واحد فرق يعني وما أنت كل حاجة دولة فضلالك أي شباب حبيرات بجلو كون وي جالسيان كون الصومالي كسارات وعود حي وعن مركو إلى سلام قيمة بدل سوق الدنيا لما تذكر يجي بلاني عند الفريق أو هذا بدون كذي برلمانك هي مسؤولية كلام بناء الفريق ويكون جيران حلوانه كترسل برلمانك فضلالك الصومالية هي مسؤولية سياسية كلام ورهذا المشهد هو الريان ورهذا هواك odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay saxaafadda iyo baanbooyda iyo fanaaniinta iyo kulli waxaan leeyahay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaa sharaf weynaya maanta inaan furno kalfadhigii labaad ee baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Jubbaland aad bay u nasiib badan tahay waxay ku nasiib badan tahay ilaahay wuxuu siiyey xildhibaano iyo guddoon iyo baarlamaan garanaya waddanka joogay xaaladda la soo maray garanaya duruufta hortaa la garanaya oo intaasoo dhan iyagoo garanaya maanta dagaalkii ku jiro kulligood wada ciidan mar labaad iyo mar saddexaad baan idinka mahadcelinaya intii maamulkan uu jiray dib u heshiisiinta marka laga soo tago wax badan baa hor yaalay oo ay ahayd wax ka qabashadeeda iyo sida la yeelay marba inaan ka shaqeyno waxaan aad isugu daynay dagaalka shabaabka inaan joojinin oo aan ka xoreyno deegaanada maqan oo aan isku daynay inaan kuwa jooga amnigooda maanta deegaanada shabaabka ka horta ah marka laga rabo inta hadda dawladdu ay qasayso oo soo dari doono waa meelaha ugu aaminsan meelaha shabaabka laga xoreeyo maxaana sidaa yeelaya ciidankii iyo shacabkii iyo mas-uuliyiintii baa ka wada shaqeynaya xildhibaanku waa askari oo wasiirku waa askari oo hooyadu waa askari oo odaga dhaqanku waa askari oo gabadha makhaayadda joogtaa waa askari oo dhallinyaradu waa ciidan oo qof waliba wuxuu ka digaya oo sheegaya cadaawadda iyo dhibaatada madaxayaasha ay u geysanayaan taas waxay keentay amniga Jubbaland inuu noqdo deegaanada xorta meelaha ugu muhiimsan Soomaaliya waxaan dabacsanaa qorshaha mustaqbalka Jubbaland inaan xoreyno deegaanka naga maqan ee shabaabka gacanta ku hayo oo ay ugu horeyso caasimadii dowlad goboleedka lahayd oo aan isu furno deegaanada Jubbaland inay isu socdaan iyadoo aad garanaysaan culayska ay leedahay Jubbaland ama shabaab su'aal baa isweydiinay maxaa culayska ugu badan ee shabaabka saaray Jubbaland maxay ku doorteen qof walba oo dagaal raba inuu galo oo jabhadeynaya meeshuu Soomaaliya ka geli lahaa waa iyada istaraatiijiyad oo maxay tahay istaraatiijiyad waa mid jabhaduhu waxay ku noolaadaan dad kala duwan oo kala hayba oo Soomaali isku yimaada oo isku diri karaan waxaad garanaysaan qaacidada aynu ka dhaxalay nimankii gumaystayaasha ah waxa la yiraahdaa divide and rule ama farriq tasud qayb iyo xukun waxaan rabaa shalay dawladda federaalka ahayd markii 2012 la dhisay waxay aad ugu dadaashay bacda shida wa ta'a inay samayso isteediyadii la dhamaystiro oo ficilna way ku guuleysatay oo nidaamkii federaalka uu hirgalo oo deyn cafiska laga hadlo oo resource sharing laga hadlo oo fiscal federalism laga hadlo oo amniga laga hadlo oo garanaysaan marxaladda la gaaray inay ahay in markii ay doorashadu dhacaysay 2016 qofku intuu gaarigiisa keliya ka haysto jawaab intuu tago soo noqonayo waddanku uu xor u ahaa inta badan dawladdana hadda timid maxaa soo kordhay maxaa isbedelay waxaa jira 2009 markaan shabaabka islaynay hadal aan dhibaa jiray shabaabku qof kasta
oo diin lahaa culimo ahaa xurmad shacabka dhexdiisa ku lahaa iyaga wax ka ahaa hebelow mana raacaysaa maya murtad baa tahay waxaa lagu ridaynaya waxay tahay masaalixdoodii buu ka horiyey soo maaha waxaan u bixinay takfiir bilmaslaxa waa takfiir ama riddo ku saabsan maslaxadooda maanta dowladda federaalka ee jirtay 8 February maxay noqotay haddii sida ay rabto riyadeeda oo ma anzalaa bihim sultaan xuluma aad ka hor timaado khayr wadan baa tahay camiil baa tahay dad kale aad u shaqaysa iyaga takfiir shabaab maanta maxay kala duwan laa farq bayna wax farqiga oo maanta u dhaxeeya dowladda federaalka iyo shabaab haba yaraatee ma jiro kuwana way gaalaysiiyaan kuwana Soomaalida ka saaraan waxa u dhaxeeya ma jiro labadaas ay noqotay waxa meesha u yaala waxay soo taageen oo joojiyeen shabaabka dagaalkiisa waxaan oran karaa iyaga shabaabku mar haday akhlaaqiyan xagga dhaqanka isaga eegayeen waxyaalo badan oo heshiisyo xidhiidhareeri jireen maanta waxay joojiyeen shabaab dagaalkiisa oo ay noqotay dadka shabaabka la dagaalamaya dowladda iyo shabaabku inay hal cod u wada yihiin oo cadaawad keliya oo meel wada taalla ay tahay completely dagaalka shabaab way joojiyeen dhulkii shalay xorta ahaaba maanta gacanta shabaab ku wada jira intaasoo dhan maxaa ka daran ha joojiyeen waxay dib ugu noqdeen qof kasta oo xurmad iyo karaamo lahaa inay maanta dib ugu ciyaareen karaamadii uu lahaa iyo xurmadiisii taasi waxay gaadhay Puntland kii laga geystay dadkii lagu laayay koonfur galbeed galmudug waxa maanta ka jira Hirshabeelle waxa loo hayo toorshar gareynta waxaasoo dhan markii laga soo tago Jubbaland waxay noqotay culayska ugu badan in la saaro qofka la saaray ana ugu badnaa la qaado sida yar warhay ra'yi male ma ra'yi mali warkii Bush 11 September ama ana raaca cadawgana noqon intaasay noqotay jawaabta la siinay wiilasha siinayna wiilal yar oo dawladda waxba ka yaqaanama lacagta la horeeyay dadka la hebel oo lacag qaado iska tag maxay tahay macnaha looga jeedo waa hanjabaado iyo dawlado kale ee loo soo kaxaysto la yiraahdo waan ku dilaynaa lacag baan ku bixinaynaa oo wadanka xaaladdiisa halka gaadhay waxay noqotay marxaladaha dhabta ah ee dawladnimadii Soomaaliya maanta ay dib ugu noqotay Jubbaland taasaan ugu sameeyay doorashaan galay markaan diidnay inaan waxyaalaha badan ee qoorsiga iyo gudnimada diidno waxa aan maanta sharafiya reer Jubbaland waxay ku qanacsan yihiin iyo waxay rabaan inaan u meelmariyo haddaan maanta lacag qaato oo saaka la yiraahdo lacag 20 milyan Axmed oo qaado afkaygu hal qaado qaadaa Soomaa wuxuu Nelson Mandela malqacad baa afkaygu qaadaa South Africa afkayga ma geli karto hal qaado afkaygu qaadaa macna ma jiro markaa loo gorgortami karo wax loo sameeyo waxaan ku yiri dawladda federaalka ah iyo ciiday soo direysay waraan soo nimaadna wada fadhiisan dastuurkana inaga dhaxeeyo buuga yarka ay ku heshiin qof walba xuquuqda dastuurku uu siinaya ha qaato hadduu inta qofku diiday xagee la geeyay waxa ka si ayaan waxa la war ciidamadan wareebel iyo ruush goorma coloobeen buurintii la diyaaradaha maxay Turkiga goormaan coloobay oo Soomaali ciidanku u tababaraya ay noqday kuwa dadka lagu laynay ama harab cadde ama shabeelde ama bahal kale ugu yeeray waxa la leeyahay ciidankii Turkigu soo tababaray ee loogu talagalay shabaab inay la dagaalamaan yaa waxay noqdeen kuwa maanta balad xaawiya doon oo intii la keenay shacabka lagu gubaaday waxaan oran lahaa dawladda Soomaaliya wax lagu aamini karaa maanta ma jirtee warin ma reeyaal hawadiina bal cid kale oo noo haysa loo dhiibay ciidamadan la soo tababarayana qadarayna lacagtaad bixinaysa nagada dhibaatada wadanka ku ah Turkiga waxa tababaraysa joojiga shacabka Soomaaliya taariikh bay u geli doontaa waxaan leenahay reer Jubbaland dagaalkii shabaabka waa laba laabayna way wadayna
دولة فضلالك وحالينا دولة فضلالك ونحاض لها فرماتشو مدحيهي باتي كالان ولا هذا اللي ميسا ولا فريسنا دستور كوحو كسيا قادا وحونا سيانا قادا هدي انتهى لواي دعينا لك على حكوتان رادين هدي لواي dadku siyaalo kale oo tashan doonaan hadii laayna dhowr qodob oo waxa jira sidooda looga hadlo aan rabana mowqifka Jubbaland inaan ku cadeeyo arinta deyn cafiska 2015 waa la bilaabay xilliga Xasan Sheekh Jubbaland waxay ka ahayd udub dhaxaad deynta ila cafiyo caawaan taaganahay bari baan taaganahay waan ololeynaa waan taaganahay sababtoo ah deynta maanta la bixinayo lixdamaadkii iyo wixii ka dambeeyay la galay qofka maanta dhalan dooniyo ka dhashay iyo ka diyaar midkood waxba kama oga illa laga cafiya waxay macno u sameynaysaa shacabka horumarkiisa diyaar baarna in laga shaqeeyo waxaan hadda ka hor ka hadalnay war cabashada qabna waxay tahay haddaan ilaa deynta hal cafiyo oo hadda intii deyn la cafiyo waxa la bixin leeyahay qoladan hawadii xadaysa ee khaladka u isticmaalaysa ciidankii qaranka khaladka u isticmaalaysa waxba lagu aamin karaa waa maya laakiin taabul aan isaga imanayna waxaan rabnaa in si buuxda aan diyaar u nahay inaan ka shaqeyno barnaamijka deyn cafiska si kasta ay noqoto sababtoo waa culays Soomaaliya ka dhacay maanta baa la sheegay nin baa xaalad deynta Soomaaliya laga cafiyo islaanta jaadka kula hayd intuu tagay deyntii waa la cafiyay waxba adigu leedahay Kenya waa wadan aan darisnahay حدود 800 aan leeyahay dagaal shabaab ay nala soo gashay oo laga bahad celinaya Jubbaland arta Kenya ma tahay la ogaado dastuurka dawladda federaalka waxa awood u siinayaan iyada hal la ogaado hawla anagu inta ka badan aan kareenahay ma laakiin waxaan ka hadlaynaa Ethiopia iyo Kenya iyo dawlad kasta oo ciidan ka jooga waxaan u baahanahay waxa aan ku jiray dagaalka inay nala galaan wax kale anaga Soomaali iyo barnaamijkeeda ku saabsan oo ka wada hadalnaa ma jiro waxaan ku soo guraanayaa ciidamada jooga xawar laga soo daablo ku noqdo xiriin lama qaata amarka qaadkii oo macsiyada qaadanin mas'uuliyadaasna in meel la saaraan u baahanahay waxaan dhawaatada dadka reegada maanta haysata ee looga barakacay 12 sano ka hor deegaanada la xoreeyay maanta inay sidaan noqoto lama aqbali kareen waa mas'uuliyadeeda meel loo aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum